waqtigu dhalan roguma intuu dhinacaaga jiro inta iyo subag baad heshaa inta iyo subag baad heshaa markuu kula dheeliyaa dhabarka kuwa ujeediyaa irbaaxana kugu dhuftaa balaayada ka dhaxda dhigaa way haysataa daawadayaal idilhaantiiba meel walbaad naga daawanaysaan ku soo dhawaada waxaan ku sugannahay waa magaalada Hargeysa xarunta dhexe uu ku leeyahay telefishinka Ariel isla magaalada Hargeysa dhawaan waxaan idila wadaagnay mid kamid ah ciyaaryahanadii soo maray dalkan magaca iyo maamuuska intaba ku lahaa waa Saciid Maxamuud Axmed oo ku magac dheeraa Wisti balse noloshiisu ay ka duwaneyd noloshii berigii hore uu ku noolaa Saciid waxa uu ku noolaa buuraha Siraadley halkaas oo in badan muddooyin badan noloshiisu ay ku xidhnayd balse galabta muuqaalkan aanu sida tooska ugu wareysan doono uu ka duwan yahay muuqaaladii hore waxa uu soo gaaray magaalada Ceerigaabo iyadoo aanu ku dadaalay inuu halkaas yimaado muddooyin badan ka bacdi balse maanta muuqaalkiisa magaalada Ceerigaabo iyo magaalada Ceerigaabo oo in badan ka maqnaa sidee bay noqon doonaan waa kan Saciid oo ku jira khadka si toos ah ugu jira intaynaan u galin gudaysigeena u gudagalin Saciid waxa uu kamid ahaa haliyadii soo maray dalkan magaca iyo maamuuska iyo taariikhda intaba ka sameeyay balse kubadda cagtu ay ku tusinayso dalkeena aynu ku noolahay qofku inta uu ku jiro oo kaliya uu sharaf ku leeyahay Saciid in badan way garanayaan bulshooyinku mar labaad iyo mar saddexaad waxaan jecelahay Saciid inaan kugu soo dhaweeyo isla xarunta Ariel uu ku leeyahay magaalada Hargeysa horena iyadoo halkan aan uga baahinay waraysigaaga dad badan ay kula soo xidhiidheen balse maanta aad si leefa ugu jirtid khadka ku soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad Saciid sakariyo waan dhawahay adiga iyo bahda Ariel badii waan idin salaamayaa Saciid aad iyo aad u maasintaynaan u galin su'aalaha bal waxaan jeclaan lahaa Saciid ugu horeyn inaan ku weydiiyo Ceerigaabo ayaa timi sanado badan ka bacdi waxaad sidaad qiyaastii aad sheegtay muddo 6 sano ay kugu dambeysay bal ka waran jawiga Ceerigaabo iyo maanta oo aad Ceerigaabo ku sugan tahay isbedelka ku yimi walaw aad ka maqnayd muddooyin badan buurihii waad ka soo baxday maxaa noloshaada maanta iska bedelay baad isleedahay maadaama aad Ceerigaabo ku sugan tahay magaaladii aad ku kortay inta badan aad ku noolayd waqtiyaadii ugu badnaa aad ku soo qaadatay de horta sakariya waxaan dareemayaa runtii isbedel aad u fara badan oo Ceerigaabana muddo aad u fara badan runtii ayaan ka maqnaa waxaan soo galay Ceerigaabo runtii isbedeshay dadkuna inta runtii way ka yaraayeen magaaladii aad u qurux badnaatay ayaan runtii aan imideetana de waad garan karaysaa marka buur farqiga u dhaxeeya iyo magaalo runtii Saciid aad baad u maasan tahay ma isleedahay dalkan iyo dadkan iyo dadkii ku daawan jiray iyo ha noqoto dawladdaadii intaba qiimeyn kamaad helin waxa ma isleedahay haliyay baad ahayd in badan oo muddooyin badan baad ahayd oo bulshadeedu sidaad hore u xustay inaanay qofkeeda u abaal gudin deegaanka aad ku nooshahay iyo Soomaaliland guud ahaan ciyaartooydooda inaanay u abaal gudin Saciid ma isleedahay dalkaagii iyo dalkaagii intuba ay ku dayaceen oo abaalkii aad ku lahayd kuma celin haddaan dadkanu aanay marnaba aanay istaageerin haddaan qalbiga la iska taageerin haddaan xaq kastaba la iska taageerin dee sideedaba qofku ma soo baxo marka horeba marka runtii marka sida loo yar eego aniga un maaha marka la eego dee Ceerigaabo ahaan runtii aniga un dee ma oran karo Ceerigaabo aniga un baydaya laakiin dee sports fara badan oo haddana intii dhimatay Allah u naxariistay inta nool xataa inta nool igaba sii horeysayba anigaba iga siiba wanaagsanaa ayiba waxba tari kari waxba la qaban kari weedii marka waxa la oran karaa ma ahun aniga un laakiin wixii sportsba Ceerigaabo way dayacday aad baad u baadsan tahay ma nala wadaagi kartaa waxyaabihii ka soo maray kubadda cagta ee kugu la yaabka badnaa maskaxdaada aan ka bixin saameynta iyo raadka kugu reebay ama dhacdooyinka aad kala kulantay intii kubadda cagta aad ku sugnayd sakari horta waxyaalaha aad u fara badan runtii ayaa iga yaabiyay laakiin haddaan balaaba aan soo yar koobo waqtiyada 2003 waxa kamida sheekada iga yaabisay runtii
ciyaar baanu markaa waa sima finalkii weeyay annaga iyo Hargeysa weeyay ayaa markaa ciyaarta wada lahayn deetana Hargeysana runtii dee cabsi baa nagu jirtay waanu ka baqaynay Hargeysana waa dareemi karaysaa ciyaartooba Isbaanishkii ugu maqnaa oo haddana yimi Shactorola kamida Cabdiriyaad baa kamida ciyaartoo runtii aanu ka baqayno waana gobolka ugu ciyaarta wanaagsanaa uguna ciyaartooga wanaagsanaa maadaama aanu ku beeganay runtii cabsi baa na yar gashay marka waqtigii aanu anagu garoonka markaa ku sii soconay anagoo runtii aanu qofka la hadlayn laakiin anigu markaa ilaa 3 ilaa adigu ciyaartoo fara badan sportsku ilamay socon taageerana way la socdeen deetana sheekadii igu yaabka badnayd waxay ahayd anigoo runtii ka fakiraya aniga waxaan dee aan isoran karaaba waa mucjiso aniga runtii igu dhacday gabadh baa markaa dee taageerayaashii fara badnaa Hargeysa ee annagana taageerayay markaa Hargeysay taageerayaan taan lafteeduna annaguna si baan uga yar naxsanayn waayo dee taageere la'aan runtii ma badin karaysid halana qaban kari maysid deetana sidaan u sii socday deetana dumar fara badan oo ayaa soo baxay oo xaafadaha deetana marka annaga aan waxba nooranayn laakiin markaan lahaa Hargeysa maanta taageerayna oo Hargeysa badinaysa marka gabadh baa ilmo yar markaa dhabta ku sidatay ilmo yar bay sidatay oo hooyadiina markaana waxay taageerisay Hargeysa ilmaha yar ismaanan lahayn markaa uu idin hadli doona ilmaha yar baa markaa ila hadlay anigayga wariya kaaga timaha dheer buu igu yiri markaa waan yar tima dhaadheer runtii deetana gabadhii baa alla raali ahaada bayna tiri deetana inankii baa haddana aamusi waayay deetana yiri wariya inankaaga timaha dheer waad badinaysaa maxaad ka yabaalay Hargeysa waad ka badinay marka hooyadiina waxay taageerisay markaa Hargeysa inankina markaa anagu na taageer runtii markaa tii ugu yaabka badnayd horta taasay ahayd sidaasaanu markaa runtii aanu ku badinay waana ilmo yar runtii ahaa kamaan filayn ilmaha yar inuu markaa hadalada ku hadlo iyadoo taas sidaasay ahayd tu kalena haddaan kugu daraan waqtigana haddana runtii aan soo koobo waqtiyada kamida ciyaarihii kadib ayaan anigaygaas ayaa markaa ku noqday Hargeysa waqtiyada kamida markaa ayaan runtii waa sheeko la yaab leh iyaduna waxaan ku soo beeganay markaa Dooxa Hargeysa socodkii ayaa halkan ala soo galay deetana halka waxaan markaa aan ku soo beegmay 3 inan oo markaa tooriyeysto oo habla halka ku baadhanaya 3 hablood halka ku baadhanayeen deetana anaguna ku soo beegnay markaasayna yiraahdeen tooriyada inagu qabteen istaagiyaan istaagnay ayaa inan kamida baa markaa tiri alla ina karo ma wistiba kii markaa tooriga ee sitee ugu weynaynamada ayiri ma wistigi laacibka haba naama ka dhabba ha waa ina ka ciyaartooga ha soo sidaa maaha ina ka dartii baan idinku saamaxay dhamaantiinba halkaas deetana iyaduna runtii la yaab runtii taasuna igu noqotay iyo waxyaalo fara badan oo imikana runtii aanan xasuusan karin maanta waa sidee maadaama bulsho badan caawa ku daawanayso dareenkaagu waa sidee dad badan baa ka soo falceliyay ama kula soo xidhiidhay si toosa ma isleedahay dad badan baad qalbiyadooda ku dhex nooshahay caawa runtii horta halka laga nool yahay maadaama qalbigii Sakariyo aad soo xustay halkan laga nool yahay runtii waa qalbiga meel kale dadku kama noola wuxuu qofku ka farxaaba had iyo jeerna waa qalbiga annagu waxaan ku ciyaarinay waa qalbiga sportskuna caana waliba bahda sportska intiisa badani waxay ku shaqeeyaan waa farxadda sideedaba noloshuba qof aan faraxsanayn ama aan qalbiga ka noolayn ma noolaan karo marka maanta waa runtii aan islahaa Somaliland la isku xuso ergaabana hadalkeeda daa runtii waan jeclaa in ergaaba la iga xuso laakiin haddana qadarkii alla wuxuu qoray in gobolada galbeedka la iga xuso aan jeclaa ergaaba markaa inay iyadu i xusto laakiin runtii imika dee meelo fara badan baa la iga soo xusayo inta iga soo xustayna waa ciyaartoogii Hargeysa waa ciyaartoogii Saaxil haddaan runtii halkana jaanisna aan markaa ka dhigto intii soo xustay dee way fara badnaayeen dee Saaxil biriq baa kamida
iyo ciyaartooy fara badan oo shactiroole laftiisuba uun adigu ay xuskoodu ay intaana ay soo xusayeen marka waa alxamdulillah haddii lagu xasuusanayo wax ka qiimo badan runtii maba jiraan kubadda cagta waad aragtaa qiimaheeda dhalinyaro fara badan baa ku haysa gacanteeda sidaad adiguba sheegtay dhalinyarada ama kuwii iminka ku haya ama kuwa ku dhex jiraba ha noqdaane caawa fariinta ama dardaaranka aad la wadaagayso meel walbay ku sugan yihiin iyagu way ku dhagaysanayaan si toosay kuu maqlayaan bal nala wadaag caawa fariinta aad la wadaagaysid meel walbay ku sugan yihiin fariintan halkan aan runtii aan u farayo sportsku ama intaa bahda sportska ee waliba kubadda waliba ciyaartaa waxaan u sheegayaa kubaddu caynka maaha kubaddu qabyaalad maaha anigaygaas imika si kastaan ciyaarto aanu ahaa haddana imika garoonka Ceergaabo ciyaarto fara badan baa iga horeeyay reernimo runtii laguma soo baxo hatta maal iyo lacag hatta hadad haysatid ku soo bixi kari maysid laakiin waxa ku soo saaraya waa adinkaaga iyo akhlaaqdaada marka waxaan u sheegayaa wixii bahda sportska kubadda ha ka caajisina waqti wanaagsan baa idin iman doona nasiib wanaagsan baa yeelan doontaan balwadda ka fogaada kubaddiinina ku noqda waliba gaar ahaan Ceergaabo wiyadu isbedeshay annagu kubadda marnaba ma joojin jirin iska daa hatta waxay nala gaadhay intaan garoomadan cusub la keenina casriga tolo habeenkiina sideen ugu darnaa annagoo haddana maalintii ciyaari jirnay marka Ceergaabo runtii Ceergaabo way ka dhacday annagu maalinba sanadkii aanu garamayo inta roobkaas naxanibo mooyaane kubad ma joojin jirin markaas jeclaada muhibbada iyo jacaylkaasna ayaa markaa guusha lagu gaadhaa iyagana bahda sportska meel kastaba ha joogaane intaasaan oran lahaa fariintaad iyagana la wadaagaysid cid walbo ka falcelisay waraysigaagii hore ama kula soo xidhiidhay meel walbay ku sugan yihiin iyagana dardaaranka ama fariintaad caawa faraysid ama aad noqoto asxaabtaadii intii ku qiimaysay inta kula soo xidhiidhay iyo inta si toos maanta kugu timaad Ceergaabo ku sugan tahay waxaan oranayaa doorta alla khayrna ha idin siiyo wadna ku mahadsantii runtii haddaan la isdareeminna waxa ma jiraan marka dareenka ay runtii ii muujiyeen ama Yurub ha joogaan ama dalka gudihiisa ha joogaan ama Aasiya kaleba ha joogaan aad iyo aad bay ugu mahadsiin aad iyo aad runtii ugu dambeyn Siciid aad bad mahadsan tahay bal message-ka aad farayso ha noqoto wasaaradda cid kastoo kubadda cagta gacanta ku haysa mas'uuliyadii ka saaran tahay dhalinyarada oo aad sidaas sheegtay aad xustay in la dayacay meel kasta ay ku sugan yihiin dadkii sportska ehelka u ahaa aanay qiimaynin dadkoodii in badanna ay madadaaliyeen bulshooyin kala duwan fariintaad iyagana farayso caawa si toosay ku dhagaysanayaan meel walba ay ku sugan yihiin adigoo aniga iyagaba fariintaana la wadaagaya caawa horta fariintan hawada anigu waan u marin lahaa imika iyadu noloshii haddana iskala bedeshay berigii hore anagu xilligii tusaale ahaan horta imika wasiirkan sportska runtii anagu isma naqaano isaga laftiisuna na garan maayo wasiirada soo marayo markay wax naga khaldamaan wax naga qaadin jiray anagu Ceergaabo ahaan runtii aad baan uga caban jirnay calashan fogaanshaha wasaaraddan hatta marmar aanu ku qaylin jirnay anagoo 40 anagoo 50 kontonka ka waram sports Ceergaabo ayaa waxa qaabili jiray waa wasaaradda imika laba inaan qaabili kari mayso isbedel weyn baa markaa dhacay wasaaradii iska daa heerkaanu marinay iska daa basketka inamada ciyaarane hablaha ciyaari hatta basket wasaaraddu markaa heerkaasi marisay sanad kastana hadana waa la qabanayay marka waxa kale anigu runtii ku sii fogaan maayo waxaan u sheegayaa waa wasaaradda ugu ballaaran waa bulshada dhalinyarada ayaa ugu fara badan Soomaaliland waana wasaaradda ugu ballaaran ee dhalinyarada marka ha ku soo noqoto yani siyaasad kale iyo arrimo kale yani gelin hadday imika garoonka Ceergaabo wali lama hagaajin oo wax badan baa ka dhiman wareegi hatta idima qabato wax kale oo la qabto haba yaraatay maba jiraan
haddaad ku tiraahid balaaba aad sii wareysatid oo aad ku tiraahid maxaa koobkii sanad kastaba xataa la qaban jiray annagu garan mayno de sportsku inta dhalinyaradu garan mayaan dhaqaale xataa hadduu qofku ku yiraahdo wasiirku yiraahdo dhaqaale ma jiraan ila runtaaba xataa la isu sheegay xataa dadka sii wareysatid waxa lagu oranayaa oo sootaanu garooman marka la weydiiyo maxaa ciyaariyo dhigi weydin oo sootaanu gobol kastaba garoon ka dhisnay war garoon ka hadli maaye garoon aan lagu ciyaarin ila garoon maahe bal ka warrama sootii aanu marasoon annagu Hargeysa ku qabanay war marasoon annagu waxba ka garan mayna ciyaarihi baanu rabnaaye sootaanu niman cadaana keenay Hargeysa ordaya markaasu tii waxay noqonaysaa cudurka ka gala fardaha hadii laga gubo dameer dawada weligeed lama gaadho marka bulshada daweeya wax kale ma rabaan wax u qabta ciyaarihina soo celiya iyagana intaasaan oran lahaa runtii ma hadda ka sokow ilaahay waxa iskale oo aniga qaabkii xataa runtii anigu buurta ka soo bixi maayo dadweynaha ismay bedelin marka Sakariya iyo Mr Xidig oo runtii igu khasbay iyo ciyaartooy kale oo fara badan haddana iyaguna qurbaha ka soo qaylinaya oo wisti hal la keeno magaalada kadibna galbeedkana haddana Hargeysana hal la keeno horta ma hadda ka sokow ilaahay ragaas iskale halkana maantana ay keenay maantana aanu halkan isku wareysanayno iyo bahda waliba ka qayb qaadatay runtii Ariel iyaduna waan u mahadcelinayaa kaasi waxa uu ahaa Saciid Maxamuud Axmed oo ku magac dheeraa Wisti maanta waxa uu joogaa magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo balse markii hore waxa uu nagala hadlayay masaafo meel u jirta oo loo socdo 3 maalmood halkaas oo uu ku noolaa in badan oo noloshiisa kamid ah ku qaatay maanta uu ka soo baxay waxa uu ku sugan yahay Ceerigaabo oo uu muddooyin badan ka maqnaa inta aynu ku kulmayno mid kan lamida aanu sidii ku soo gudbin doono noloshiisa iyo taxaniisa aad baad u mahadsantiin cid walba daawanaysa caawa jeclaydna inay muuqiisa iyo muuqaalkiisa inta baarkaan iyo cid kasto la soo xidhiidhay cid kasto oo asxaabtiisa ahayd meel walba ay kaga sugan yihiin daafaha caalamka aad iyo aad baan idin salaameynaa waxa muuqaalkan si toos ah u soo baahinaya waa Cabdiraxmaan Xidig oo ku sugan isla magaalada Ceerigaabo